kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeena maawalada dhallaanka oo ka daawataan ama ka dhageysataan channelkan YouTube ku leenahay ee dhalaan koriye toddobaadba sheeko cusub ayaa caruuray ku maqashaan sheekadeena maantuna waxay qaybteedii labaad tahay taxanaheena cusub ee boqoradii ayaan iyo musaxirada Helena ku saabsan waqaybtii labaad ee sheekadeenan intiina hore noola socotay waxa channelkeena ka daawateen qisada ku saabsaneed ayaan iyo qumayada Helena intiina aan daawana mar kale ayaa isla channelka ka daawan kartaan ayaan waxay haydinaan yar oo dhalay boqor caan kana talin jiray boqortooyo ballaaran hooyadeed ayaa dhimatay iyadoo da'yar aabbaheedna waxa uu guursaday gabadh labaad oo Helena la odhan jiray balse gabadhii ayaa ka hinaastay xasad adagna ka qaaday quruxda ayaan taasoo markii dambe isku bedeshay qumayo nolosha boqorada da'da yar le ka soo horjeeda dagaal dheerna la gashay sheekada qaybteeda hore haddaad daawatana si wanaagsan ayaad u fahmi kartaa qaybta labaad ee sheekada ku soo dhawaada qaybta labaad ee sheekadeena waxay ahayd saban wacnaad waqti qurux badan boqorada ayaana waxay nolol qurux badan oo reereyn la qaadanaysay boqorka iskuursadeen waxay la wareegtay boqortooyadii ballaarneed aabaheed ka talin jiray waxaana iskuursadeen boqor da'yar waxayna ku nooleed nolol qurux badan oo jacayl ku dheehan yahay waxayna maamuli jirtay boqortooyo ballaaran oo deegaan ballaaran ka talisa balse meel aan ka fogeyn waxa ku nooleed qumayada Helena buurdheer guudkeeda ayay ku nooleed halkaas ay god weyn ku lahayd waxay haysatay adeege ahaan inay sixir ku naanaabisay oo madaxdiin la odhan jiray maalin kasta buurta dusheeda ayay ka eegtaa waxay boqoradu sameynayso waxayna adeegaheeda weydiisaa oo ay ku tiraahdaa markasta waa iyo qofka ugu quruxda badan leh boqortooyada isna waxa uu ku yiraahdaa boqoradaydii adiga ayaa ugu qurux badan marka laga tago markuu eriga marinayo tiraahdo qof kale xus ayay ku xanaaqdaa markaasay tiraahdaa aniga ayaa boqortooyada oo dhan ugu qurux badan cidna igama qurux badnaan karto waxay lahayd muraayad musixiro ay waraysato had iyo jeerna ay isku eegto balse hadda taasi kuma filla waxay go'aan ku gaadhay muraayad cajiiba oo dadka dili karta ambin karta qarin karta liqi karta gibigooda dhan ay abuurto waxay raadinaysaa dharka laga sameeyo sixirka waxay awoodo oo dhan ay isku daraysaa dhagxan ay hataa u yeelatay kuwa duuli kara waxayna hadda karinaysaa waxyaabo tiro badan oo isku dartay waxayna doonaysaa inay u noqdaan oo ay leedahay noqda muraayad madow oo ay tusi karta wixii iga qarsoon oo dhan wixii aan ku dagana noloshooda aan dub loo arki karin muddo markay karkarinaysay ayaa waxa u soo baxday muraayad madow oo dhagxantu ag duulayso taas oo xataa iyada laftigeedu ka baqatay markii dambe waxyaabo sixirkeedii kamid ah ayay akhrinaysaa oo ay shubaysaa balse waxay doonaysaa ay ugu noqdaan xataa adeegaheedii madaxdiin ayaa isaguna aad uga yaaban waxuu eegayaa siday isku bedeshay iyo waxay noqotay mar keliya iyo muraayadii noqotay mid ay ka dheehan karto wixii ay doonayso ay aragto waxaa ka dambeeyana gadaasheeda kaymo iyo ay cidlaa oo qofkii galaa noloshiisa oo dhandub uusan u soo noqon karin hadda Helena oo ah qumayo weyn waxa u meel maray sixirkii ay doonaysay aad ayay ugu faraxsan tahay waxaa hadda la gaadhay waqti fiidnimo oo xayawaanku xataa caraabayaan waa gabaldhac godkii ay ka shaqayn jireen waxa ka soo baxaya 7 muruqmaal oo rag xoogsata ah oo la saaxiib ah boqortooyada ay maamusho ayaan mid ayay u soo baxayaan ilaa labadii ugu dambeysay ay ka soo baxeen waxaana ugu dambeeya midkooda ugu caajisan had iyo jeerna jecel inuu seexdo markuu banaanka u soo bixay ayaa aanu yara nasanno oo halkan aynu hawo ku qaadano malaa xataa waban yara gami lahayne laakiin waxaa diiday maamulahoodii oo ku yidhi waxaasu dhici mayso soo bax intaan gabalku inagu dhicin ayaynu caraabaynaaye intii sidaas kartiis daba galeen oo wada socdeen ayay dhaqaaqeen iyagoo heesaya gehen, bevor der Abend hereinbricht. Die Zwerge machten sich in einer langen Reihe auf den Weg.
markeliya arkay tuka duulaya wuxuu arkay tuka afka dheeman ku sita wuxuu amba dahab mooday oo isaga doonayay inuu siiyaba waxa uu sidii malaa wax lagu soo diray oo dahabkan ayuu doonayay inuu adiga ku siiyo geed ayaa u fuulay isna intuu geedkiima ayaa ka daba fuulay oo u dhawaaday marka ka dambeysay ayuu sii dhawaanayay ilaa xataa uu ku dhawaadayba inuu qabsado markuu wax yar u jiray geedkii ruxmay waxa yaa ruxay gebigiisa oo dhan shimbirkana waa uu duulay afka wax ku sitay isagiina laamihii geedka ayaa ku soo fiday oo xirxiray meel kasta way ka qabteen xataa dhuunta midkoodna koofiyadiisii ayaabay kala baxday kuwii kale ayaa iska sii socday haddana midka ugu dambeysay ayaa gadaal u hadhay wax ayaa isaga laftigiisa u qaaqaayiraya uusan arkaynin indhihiisuna meel ayay ku maqan yihiin cabbaar marka uu sii daba socday oo kooxdii kalena ka sii horrayso ayaa waxaa sanka ka galay qiiq cad oo ur wanaagsan leh dhan kale ayaa u jiiday isaguna waa u dabagalay cunno ayaa moodayay ama malaha wax dhow oo meelahan agtiisa yaala muddo ayaa daba socday qiiqa cadna waa u si libdhayay ilaa markii dambe geed uu madaxa ku dhuftay qiiqi ayaa daba ugu soo laabtay wuxuuna isku duubay gebigiisa oo dhan waa u qariyey muddo markuu qarsoonaana dhammaantii oo dhan waa la waayey waxaa keliya ka soo hadhayna waxay ahayd koofiyadiisii huruud ahayd oo keliya arrintan waxay ahayd baqasho leh balse kooxdii kale ayaa sii socday waxay ku sii dhowaanayeen guryihii ay deganaayeen ee boqortooyada agteeda ku yaalay kadinka markay marayaan ayay is ogaadeen inaysan dhammayn balse ka hor intaysan taa ogaan boqoradda ayaa cunno u geysa maalin kasta markay soo rawaxaan waxay u qaaday cunnooyin macaan waxaana u timi boqorkeeda oo ah nigsaygeeda waa ninkay la nooshaye waxay u sheegtay inay u tegayso saaxiibadeed oo ay cunno u geynayso isna waxuu ku yidhi is ilaali waa xilli dambe waxaa dhici kara wax kasta qumayada Helena meel kasta ayaad kula kulmi kartaa way sii socotay markay duurka marayso ayay markaliya shimbir midabyo badan leh ka hortimi wax ayayna u sheegtay laakiin ma fahmin markii dambe shimbirtii ayaa duushay iyana waxay u garatay in ay daba gasho ay doonayso inay raacdo waan ku fahmay waxa doonaysaa inaan ku daba galo ayay tiri muddo markii socotay ayay tustay koofiyad cagaar ah oo geed ka lulata waxay tiri waa koofiyadii mid ka mid ah shaqaalaha xamuruqmaalka ah waan garanayaa waxay ka dhigantay wax baa dhacay muddo kale ayay sii socotay markii meel dhexe marayso oo ay guriga ku sii dhowaanayso ayay haddana aragtay koofiyad kaloo huruuda oo ka mid ah koofiyadihii ay lahaayeen muruqmaaladu mid ka midii markiiba waxa ayaan u cadaaday in wax weyni dhaceen waxayna u soo degdegtay gurigii ay deganaayeen 7 muruqmaal kuwaasoo ahaa saaxiibo ay boqortooyadu leedahay ayaana nolosheeda hore u badbaadiyay kadinka ayay ku soo garaacday iyagoo naxsan ayay mar kale ku wada farxeen waxay yiraahdeen waan ku faraxnay inaad noo timi waxa yaa dhacay laba ka mid ah shaqaalihiina ayaan markaliyo weynay meel alaale iyo meel ay qabteen garan mayno annana waan baqanay oo meel aan aadna garan mayno waa inaad nala doontaa oo aad nacaawisaa waa inaynu badbaadinaa kulli waxa yaa helay laba kamida ayaa markiiba waxay go'aan ku gaareen in guriga ay joogaan intooda kalena ay raacaan boqoradda shimbirkii cagaarna ayaa hor duulaya meel banaanka ahna waxa taagan boqomayadii Helena iyo adeegaheedii madaxdiin waxay shabag sare ku xidheen oo ay ku dabeen labadii muruqmaal oo runtii wixii afduubeyba ay iyaga iyo sixirkooda ahaayeen burdusheeda ayay ka lushaan Helena aad ayay ugu faraxsan tahay waxayna ku tiri adeegaheedii dusha ka ilaali muraayadeedii ayay u timi masixirka ahayd waxay ku tiri muraayadanay eeg oo itus halkay joogaan boqoradda ayaan iyo qaybtii kale ee kooxda muruqmaalka ah labadii muruqmaal ee shabaga ku jirana waa ooyeen laakiin muraayada Helena wadata waxay sheeda kala socotay halka ay soo socdaan ayaan iyo saddexda muruqmaal ee kale iyo shimbirtii la socotay ayaa habeen iyo maalin socday roobab mihigaana ayaa ku da'ayay duur iyo buuro ayay ka gudbayeen marba marka ka dambeysana daal ayay bas la sii noqonayeen wuxuuna socdaalka lagu samata bixinayay labada muruqmaal mid adag
helena sheeda ayay kala socotaa oo muraayadeeda madow ee musixirka ayaa tusaysa halka ay marayaan. intii sidaa u eegto ayay tirahdaa ha waa kuwa waan arkaa. qosolkeeda cajiibka ah ayay ku dhafataa markaasay u diyaar garowdaa. waxay madaxdiin ku tidhi waa tabtaan doonayay hadday ii yimaadeen waa shirqool kale oo aan iyagana ku dili karo. waxay soo koreen buurtii dheereed ay ku xidhatay way gurguurteen waxayna ahayd buur aad u dheer oo in la kora ay dhib badan tahay. waxay soo gaadheen afaafka hore ee godkii ay deganayd helena waxayna arkeen labadii muruqmaal oo shabag dheer oo buurta duudkeeda ka lusha ay ku xidhatay. waxay yidhaahdeen na badbaadi ayaan na badbaadi. waxaad si ogaataa in qumayadu ay leedahay muraayad madow oo ay ka arki karto ciddii ka maqan. kadinka ayay kaga soo gashay ayaana godkeedii siday u eegta bal waxay halkan ka samaysatay musixiradu. madaxdiina wuxuu dusha sare ka ilaalinayaa labada maxbuus ay soo afduubatay musixiradu ee ka koobnaa ee ka midka ahaa shaqaalaha muruqmaalka ah. mid ka mid a shaqaalihii muruqmaalka ayaa xagga dambe kaga soo booday madaxdiin markaasuu jawaan madaxa u geliyey. labadii kalena waxay soo dedejiyeen shabagii ay ku xidheen. waa uu soo dhowaaday. markay soo dhowaadeenna shabagii ayaa xataa madaxdiin madaxa kaga dhacay. markay keeneen ayay arkeen in shabagu qufulan yahay laakiin labada nin ayaa u sheegay ee la afduubtay in furihii uu ku xidhan yahay qoorta madaxdiin. waa ay ka soo fureen. markaas ayay soo badbaadiyeen labadii shaqaalaha muruqmaalka ahaa ee qumayadu qafaalatay. bannaanka ayay ula soo degeen. aad ayay ugu farxeen sida loo soo samata bixiyey. ayaana mar keliya waxa ku soo baxday helena. waxay ku tidhi ayaan dhegayso sidatan kuma ahaan kartid qofka ugu quruxda badan leh sidatan kuma ahaan kartid qofka ugu quruxda badan leh boqortooyadeenna. haddaad dhabtii doonayso inaad qurux badnaato waa inaad dadka dhibaatada ka daysaa. quruxda qalbiga ayay ka timaadaa ee kama timaado dadka oo wax la yeeleeyo. iyaduna inta ay la soo baxday indhaheediina sixir ku casaysay kana dhigtay gacmaheedii midi ay wax ku dili karto ayaan isku dayaysaa inay muraayada madow ku tuurto si gebigeedoo dhan loo waayo. waxay ku tidhi soco ku dhac muraayadda noloshaadoo dhanna waxaad geli doontaa ay iyo duur dub aanad uga soo laaban intaad nooshahay. marba marka ka dambaysa ayay ku sii cadaadinaysay laakiin muruqmaaladii ayaa doonayay inay badbaadshaan. mid ka mid ayaa soo gurguurtay oo iyadiis hor seexday. labadii kalena intaysa soo qaadeen waxay ahaayeen rag aad u gaagaabane oo tamar yare ayay dusha kaga dhaceen. iyana waxay ku turoonturootay midkii hor jiifsaday. kadibna muraayadii madoobeed ayay sidaa ugu dhacday waana la waayey. madaxdiin oo ordaya ayaa isagaan waxba hubsan muraayadii madoobeed ka dabagalay. dam isna muuqaalkiisoo dhan ayay waayeen. halkaas ayayna ku libdheen. waxaana sidaa ku guulaystay ayaan waxayna soo badbaadisay labadii muruqmaal ee qumayadu afduubatay. dhammaantoodna way farxeen waxayna u mahadnaqeen ayaan oo yidhaahdeen nolosheenna ayaa badbaadisay. ayaanna waxay ku tiri waa inaan muraayadan musixirkaa burburinaa. gebi dheer oo buurta ah ayay ka tuureen waxayna ku dhacday webiga. intaa markii sameeyeenna waxay tiri naga mariya. ayaana waxay gurigooda u soo raacday 7 muruqmaal oo ay cunadii siday u qaybisay. dhammaantoodna waa isla farxeen waxayna mar kale ku farxeen sida dhagarta ay qumayadu u dhigtay ay uga badbaadeen. caruurey shirqoollada ay qumayada helena la maagan tahay ayaan inta kuma dhammaan doonaan. sheekada qaybteeda 3 ayaad ogaan doontaa shirqool kale oo kan ka culus. dagaalka u dhaxeeya boqorada ayaan iyo musixirada helena halkaa iskuma taagi doono. tan iyo qaybta dambe ee sheekadeenna nabadgelyo.